kulanti wacan oo wanaagsan daawade ku soo dhawow muuqaal aan huba inaad ka heli doonto laakiin si xushmad leh waxaan kaaga codsanaynaa marka hore inaad nala joogto ilaa iyo dhamaadka sheekadan. waxaan ciwaankeeda aan u doornay dawladnimada oo muwaadinka loogu gurmado waa wax weyn oo dhiirigelinaya nafhurnimada. waa mid ka mid ah sheekooyinka qofka muwaadinka ah u tusaaleynaya muhiimadda ay leedahay dawladnimada. waxa aan jeclaysanay inaan soo gudbino dadka ku xiran barteena bilan daawade si aad noo dhiirigeliso waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto boggeena sina share gareyso muuqaalkan oo aad la wadaagto saaxiibada. sheekadan waxaa bartiisa Facebook ku daabacay Xasan Cali Geese oo ah agaasimaha Dalsan Media Group kana mid ah saaxiibada aadka ugu dhow afayeenkii xukuumadda ee hadda xaaladiisa lagu baxnaaninayo dalka Turkiga. sheekadan waxa uu ciwaan kaga dhigay Xasan Cali Geese gurmadkii macallimu tusaalaha micnaha nafhurnimada qaranka. waxa ay ku bilaabanaysaa sidatan inkastoo dhammaan muwaadiniinta ay xaq u leeyihiin dawladooda daryeelka caafimaadka ay u baahan yihiin haddana waa farxad waajib ka sii dhigaysa marka qofka loo beegsado shaqada qaranka awgiisa. macallimu kaliya ima ahayn xirfad wadaag balse waxa uu yahaa sokeeye aan waqti badan saaxiibo ahayn. tiro 4 jeer ayuu ka badbaaday shirqoolo dhimasho keeni karay oo qaraxyo iyo weeraro ahaa. 16 Janaayo 2022 ayuu la kulmay weerar looga dan lahaa khaarijin. wax yar uun kadib shilka ayaa waxa ila soo xiriiray saaxiib shaqo aan ka fogeyn goobta dhacdada. hilbo go'an ayaa igu soo dhacay waxaana ay u eg tahay in ay wax ka dhaceen aaga guriga macallimu ayuu igu yiri. anna telefoonka ayaan ku damiyay kadibna xooraan ayaan u dhaqaaqay. waxa aan tibax ku helay in la weeraray macallimu. mas'uuliyiinta dawladda oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay weerarkiisa iyo sidoo kale in la dhigay isbitaalka Erdogan ama Digfeer isaga iyo darawalkiisa. waxaan u dhaqaaqay isbitaalka si aan u bixiyo waajib wadaynimo waxaana aan ahaa qofkii labaad ee gaaray isbitaalka. markii saalada la gelinayay waxa iiga horeeyay kaliya taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole. kadib waxa aan ka mid ahaa saaxiibadii ka shaqeeyay in macallimu uu helo adeeg caafimaad oo uu u baahnaa walow dhaqaatiirta isbitaalka horaanba ay u gurmadeen. waxaa xigay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble uu daryeelka macallimu u saaray guddi wasiiro ah iyo tiimka xafiiska lagu daray bahda warbaahinta oo aan ka mid ahaa. waxa ay xukuumadda kireysay diyaarad qaas ah oo dalka Turkiga loogu qaaday dhaawaca rugcadaaga iyo darawalkiisa. waxaana isla habeenkii alaboorka fiisa degdeg ah looga soo saaray xubno ka tirsan ehelka bukaanka si ay safarka ugu weheliyaan. qarash dhan $100,000 oo dollarka Mareykanka ah ayay dawladda ku bixisay safarka haliyeyga qarankooda u dhaawacmay. safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Jamaal Maxamed ayaa Ankara uga soo dhoofay si uu Istanbul uga soo dhaweeyo macallimu iyo darawalkiisa ugana sii caawiyo tasiilaadka ay u baahan yihiin. marka intaas oo dhan aan goobjoog u ahaa maanta waxa ii soo baxday in dawladnimada muwaadinka loogu gurmado ay tahay wax weyn oo dhiirigelinaysa nafhurnimada loo bareeri karo meeshana ka saarayso in la iska ilaabo dhibanayaasha dhaxalka leh. ra'iisul wasaare Rooble, wasiirka ganacsiga Khaliif Cumar, bahda xafiiska iyo saaxiibada kale aad baan uga mahadcelinayaa dadaalkooda. si gaar ah waxa in la xuso u mudan taliya Farxaan Qaroole, Cabdullaahi Xirsi iyo agaasimaha isbitaalka Digfeer Nageeye. saaxiibkay macallimu soo kabasho degdeg ah ayaan u rajaynayaa iyo soo noqod wanaagsan oo caafimaad kaamil ah ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay bartiisa Facebook-ga Xasan Cali Geese. saaxiibadii ehelkii soo duceeyana iyaguna way mahadsan yihiin. allah u boogadhayo walaalkeen ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkan. daawade waxaan rajaynayaa in nuxurka sheekadan aad fahantay taas oo ku dhaxalsiinaysa dawladnimada oo muwaadinka loogu gurmado in ay tahay wax weyn oo dhiirigelinaysa nafhurnimada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nala joogtay daawada ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan nabadgelyo.